fanaanadan ilaa yaraanteedii ilaa intii laga dilayay waxay ku noolid murugo iyo dulmi xataa markii la dilay kadib dulmigii kama harin ee waa lagu waday السلام عليكم كوسو دودا كان كوين كايان قد عوانا صنبولو في الليك سارة هدان كحبنيني مكاكا كحبنا سبسكرايب ما انت شكدان انبا قصدا نهاية وحي كسابسانتي فنانة عان او تركيا كعان سوكا وداما بدان تركا إنا كعان waxa lagu magacaabaa Bergen waxa weeyaan fanaanad lagu magacaabay gabadha murugada sababta gabadha murugada lagu magacaabayna waad ogaan حتى هذا وحلقة يعلن الناس تاك حير إنه ذبحيسد بيرجن وحي كودا لاتي مجالات ميرسي ودن كتركيا يكون سجال بقول كنتون إيو سجالك بيرجن مركب تتبع سنجرتي أي والد كيد ويسفورين ويكل اتجين هو يديد انت يد السوق عادتي أي وحلتمي مجالات أنقرة عاصمة دلك تركيا إن أنت أبيد مركب هروي كحبناد وحيد qof yidii aabaheed yani aabaheed u jecel kadibna aabaheed markii ka tim hooyada waxay ku wareerisay aabameey goorman aabo tagayna goorman oo imanay wax noocaasa odayguna way isfureen ciyaal kale iyo xaas kale lahaa ay ku mashquulay hooyadeed markii inantu ka dim weydii aabaheedan markasta ay ku wareeriso waxay ku tiri fariin u dir aabahana fariimaha kuga soo jawaabaya kadibna beerkan waxay maalin kasta fariin u diri jirtay aabaheed hase yeeshee kama soo jawaabi jirin حتى فريمها دب لو سعودين جرا فريمها دب لو سعودين حين كارجوج هذا وحسارتين أم بفرين بوصة هذا أم بعلبة هذا وعدد ودي هذا وياه علب تنبا ورقة سب فرين توحي تهيبة قفكي صدر دب لو سعودين يا وحولها مركنا معنا كستفريمها هنا تهردرتو كورجا لو سعودين جري هو يدينا وحكي قاعد جرتي دتك بوصتها سانة أنت يدلو وجان ويقارن جرتي إن تغير وحي أبيه تسوي سيبا إسكوينات إسكول بالو كتره إسكول كما كان لقول داره هذا نوحي كشيء مركز ما حد لقول برتو موسيقى ما دام إن تغير موسيقى يفانكي وإحنا عاسة شعلت عدونا أكسرنا إلى هاي الباب حسي الشيء ما كان لبستني وإحنا عاسة ديجاني سي أيا سيمي وغدين وحبرشتي ما حد كم حاجة لي تغير كودا أون أودي غيرنا ما هذا جدي هو يدي أون أودي إني لبده كافي ده أويد قدمنا waxay ka shaqo gashay booste dawladdu ay leedahay oo loo yaqaan BTT inanta yar inkastay ka yareed 18 jir oo loo ogoleynba inay boostaha ka shaqeyso hooyadeed waxay isku dayday inay ka weynaysiiso da'deedii oo 18 jir ka dhigto kadibna boostahaasi ka shaqeynaysa boostaha iyadoo ka shaqeynaysa ayaa wiilba isbartay kadib wiilka wuxuu sameeyay waa dulmigii ugu horeeyay ku dhacay wiilkii inantii uu farxay يوم حيتري ويسامح ذا سيدي قبلو سامح يسوي لكم صدق ما كررنا ويديد iyo reerkoodii ayaa waxay khasab ugu guuriyeen wiil uu abtigeed dhalay wiilkan inaan bay u dhashay inaan markay u dhashay wiilkan ayaa wiilkii jeelka lagu xiray soo jeelka ku xiran ay iska furtay markay iska furtay wiilkii muu jeelka saa uga soo baxayna intii sideed buu qaatay abaxsaday Jarmalka ayuu la aaday Bergen waqtigaas wili steetoon may gaadhin maalmaha ka mid ah iyadii saaxiibadeed ayaa waxay tigeen maqaaxidaas wax ka soo cunayeen maqaaxida dhinacna muusig baa laga tumaa kadibna saaxiibadeed baa kuuli maadaama ogaayeen Bergen in cod macaantay Bergen ka cadu heestii ku horeysay halka ka qaaday mad garanaysa heestii ku horeysay halka ka qaaday magaceedu waxa la yiraahdaa adduunku ha qarqoomo Basın bu dünya, gitsin bu dünya. Somaalidu way ka faashadaan fanka iyo suugaanta iyo ambagaba ahaanaba maasanba hees waxay dhahaan qofku wuxuu qaado uu raaca ama wuxuu tiriyo ayuu raaca heesta ugu horeysay ka bilowday meel masraxan dad dhageysanayaan ay ka qaaday ayaa taa noqotay Bergen heesta markii qaaday ninkii maqaaxida lahaa ayaa la dhacay codkeeda wuxuu soo bandhigay inay u heesto usagna lacag ku siiyo xisla saxiixdan heshiis sanad ah inay sanad halka ka heesto maalin kasta usagna lacag siiyo sanad bay halka ka hees jirtay markaas dadkii magaalada deganaa iyo dadaan deganay bay codkeeda halka ku bartay inkastoo qaadaso heeso
oy dad hore u qaadeen aan iyadu lahayn hase yeeshee codkeeda caan noqday. kadib sanadkii markuu dhammaaday oo sanadkii uu dhammaaday heshiiska ahaa ayaa waxaa heshiis kale uga imi magaalo Turkiga ku taalo Adana la yiraahdo. magaaladii yidii hooyadeed tegeen heshiisku 6 bilood buu ahaa 6 bilood bay soo saxiixdeen hase yeeshee magaaladaas ay nolosheedu isku bedeli doontaaba. Adana markay ay tegeen ay meeshii masraxa ka heesaan maalin kasta masraxa waxaa daawado oo ka soo qayb gala fadhiista nin kuraasta ugu horeysa fadhiista iyadoo buu dhageystaa oo waxay marmar loo keenaa laakiin ma garan sicid oo keenay laakiin ninkaas uu keenay jiray. maalin maalmaha ka mid ah ayaa lacagihii ay urursanaysay ee tii hore ay ka soo urursatay meelihii hore geysay iyo halkan ay ka urursatay ayaa gaari ay ku iibsatay amba gaari ay ku soo qaadatay oo lacagtii badhna ay bixisay badhna lagu leeyay. gaarigii ay ku faraxsaneen waxay nolosheeda ay ku haminaysay lahayd lacag haysto gaarigaas noocaasan iibsanaya. markay iibsatay kadib dhowr cisho kadib ayaa gaarigii ay aragtay oo gubanaya cid gubteena la garanay. soo qaylo soo la gaariga ay baktiyay ayaa meeshii ninba ka soo booday. waa ninkii masraxa xagga hore fadhiisan jiray. gaarigii buu baktiyay yadii buu dajiyay wuxuu waxba ha warwari aniga gaari cusub oo naftiisa ku keenay kan na lacagti lagaaga leeyahay ana bixinayo wada bixinayo. ninku lacag u leeyahay taa waxa ka daran u jeceliya oo qof aanad garanayno lacag ka siiyay ku jeceliya. taas waxa u fakaraysay beerga ninkii wuxuu soo dhadhawaadaba markii dambe jacayl baa dhex maray hase yeeshee aan sheegay gaariga cidda gubtayba isagu ha beerga laakiin ma oga inuu soo gubay. ninka waxa isla socdaanba wuxuu ku iri intaan 60 bilood heshiisku dhamaanin aan iskuursan. beergana wuu ka yeeshay way iskuursadeen hase yeeshee hooyadeed way ka soo horjeeday. markay iskuursadeen kadib ayuu yiri waxaan doonayaa inaad heesaha ka fadhiisatid ana ma doonayo gabadhaydu inay heesto. wuxuu ku jeclaaday inay heestaha inta ay heesisay saasuu yiri heesaha jooj iyo waxay tiri okay aslan baan waxaan heesay inaad lacag ka shaqeysto edee wax kale oo aan heesay ma jirinba. marka haddaad lacagtii siinaysa un guri yeelanayo wax dhiba uma qabanin joojiyo halkii ku joojisa haba joojijay. ninku iluu gacan dheera habeenka soo dila inta uu ka rafaa buus يعني inantii waxa uu ka dhigtayba halkii dadku hawada u qaataan hawadii uu qaadanayay isagoo iyada dalniinkeed bay noqotay. haba noqotee waxay ogaatay inaanu ninku guursanba inuu guur beena oo fake uu guursaday. yacni waxa jira maxamada la iska mehersanayo iyadu may dhigan aroos ah reerkooda ka soo qayb galayaan sheekhiya loo yeeray wax noocaas may jas wax weeyaan inta iqaamadaada amba dee ID card-kaaga aad qaadid dawladda u geysan maxamada labadiina qof maxamada isku kiisa meherso warqad cadayna inay isqabtaan la keeno oo de hasaa ku haysataan hase yeeshee isagu warqad fake oo maxamadu soo saarin ayadu keenay wuxuu wax qabnaa haya namadi guriga ina okay bay tiri guriga u raacay ninkii warqad fake aan seeta intee bay mariyeen ninka inay isqabaan wax ka soo gudul qaanaysa dilniin ay bahdilaad ay gudul qaadaysa markii ogaatay inaanu ninku qabinba waxa ugu sii darsantay inuu ogaatay ninku xaas kale leeyahay caruurba waxaan moosinaan xaas lahayn aan caruur lahayn. markiiba way tagtay guriga hooyada bi'aada heesihii baana dub ka bilowda.
كهريا ماي كما هريا ودبا سocda iga raali noqo dub dambe gacan kugu qaadi maayo imkan si toos ah ku guursanaya wax kasta uu ku iri deergan waxay sameysay way cafis way ku noqoto halka uga bilaabay don dubutuma way ka soo cararta way ka timi asay sheemka uu qabaade ku hor feeg ba haduu ahaa de waxba kama dhaxeeyeen way sharci uma iskuma hayo laakiin imka toos buu qabaa maana ka tagay heesii bay dub uga noqotay markay ka timi heesii bay heesi jirtay wuu iman jiray maalin kasta inta uu hanjabay hooyadeed buu hanjabay iyadoo uu hanjabay oo ku dilay naftan ka dhamaynay adaan adigu soo noqon wax noocaas hanjabaadiisina ku dambeeyay oo wuxuu gubibay guri buu gubay aan kala ku yeelay hase sheemaka isagii ku tiri maxaa gurigayga gubtay maanigu maana gubay anigu xumaan ma ku samayn karaa oo kii qaraaci maadaya sanadkaas oo ah 1982 ayaa waxay soo saartay albumkeedii ugu horeeyay ayadu leedahay leedaho cabashan qaba aslan ba fanaanadan heesahooda oo dhan waa cabash waa Umar Dhuuliha Turkiga weeyaan waa calaacal weeyaan iyo wax noocaas ah heesaheeda oo dhan marka albumkeeda soo leedaho cabashan qaba bay soo saartay şikayetim var kaderden yana marka soo saartay kadib oo sigi ogaaday inay album soo saartay ayadu waliba hees ayagu leedahay album ay leedahay oo qaaraan lahayn baa ku heesisay ay soo saartay ayuu inta xanaaqay buu 3 ishu gudahood ayaa Turkiga oo dhan ka sheekaysan doonta gabadha waana sidii u dhimaan dhacay 3 ishu gudahood ayaa iyadoo ka soo baxday kalaab kamid ah galaabada ay heesteeda ku soo bandhigaysay iyo hooyadeed ayaa ay sid wajiga kaga shuwadin aan la garanay kadibna inta labadeeda indhood la wajigiiba ay sidka qaatay hooyadeed wax yar oo gacanta iyo halkaas oo cunaha ku soo duulduulay hooyadeed laakiin iyada ay ahayd qofka lagu shubay isagana laga shakiyo sameeyay yani yaa kala sameyn lahaa isaga tukaltood waa qofka hanjibay hase markii uu baxsaday markuu isqariyay hase waa la soo qabtay 6 sano baana lagu xukumay 6 sano markii lagu xukumay wajeelkii ku jiray iyaduna dhakhtarkii ay ku jirta dhakhtarkii markiiba wuxuu sheegay il kamid ah ilaheedii inay weeyday oo dagibigeedu way shiilmatayba ay siirka lagu shubay awgeed way shiilmatay isha kalena inaanay waruhayn inay badbaadin karaan iyo in kale ishii bas ku dayeen wixii awoodooda reerkuna waa faqiir dad markaa garanayay doo inanta sheekadii la socdo dad taageerayaal ah dad isgaranaya dhakhtarada qaar xitaa kamid ah ayaa waxay ku caawiyeen lacagtii amaliyada ku sameynaysan baqalninka ku sameynayso ay ku caawiyeen ishii kale alxamdulillah wala badbaadiyay ilbaynanti weyday il quraatay ma koono ninka awgeed jeelka inta ku jiray iyadoo hees ay leedahay qaasa meel masraxa banaana ku qaadaysa ayaa qof dhageysanaya heesta mid kamid ah ruugeedas ayuu mid ka galiyay toori kii markiiba gacanta lagu dhigay askartaana qabatay wixii numaad garanaysa wuxuu ku leeyahay waxaan mindida u geliyay in iyadu caan noqoto awgeed ben mindida u geliyay oo taageerayaasheeda faniskeeda ayaan kamid ah hashii waxa loogu sheegsan yahay inuu kan jeelka ku jira soo diray ninkii jeelka ka soo baxay jeelkii ka soo baxay hadana mabada isma u dhiibiyaba jeelka ka soo nocyadii buu yimi aan isku noqon iyada maxay tiri okay cafida hada waniga dhameysha ka tuura way cafida waliba waxay ka yeeshay in heesaha ka fadhiisato oo isaga xaas u noqoto fanaanimadana markaas ugu dambeysaba hada waniga waxa soo dhan ku sameeyay ayaa maxay ka yeeshay in dib ugu noqoto waliba isagoo shuruud wata sawiro ay iska soo qaadeen iyagoo wada faraxsan wax noocaas oo muujinaya kadib markii la yiri fanaanadii fankiga ka fadhiisata ninka way isku faraxsan yihiin in yar kadib ayuu halkiisa ka meesay in caadi ma baadsho bahal caydin ma daayo ay hor loo yiri war halkii gabadha tuninka uga bilaabo iyadina sidii bay dib u soo noqotay uga soo carartay marka soo carartay kadib heesaheedii ku noqotay bilowday heesaheedii markay bilowday kadib hebelkiina hanjabaad uu bilaabaysan hanjabaad uu bilaabo hanjabaya ani kasta
inuu nafta uga dhamaynayo hanjabaya ilaa iyadu la qabsatayba ay tirbo just wax iska dabiici noqotay hanjabadan maalin kasta isaga uga imanaysa laakiin markan go'aankii way ku dhigtay iyo ma garanayo inay istiyaara adkaynayso isleedahay dhowr bilood uga sii adkaysay dad ku noqotay laakiin waxay kaga dhigtantay markan kuu noqon maayo dubas kuu noqon mayno hees bay qaaday markaas biri horan TikTok soo dhigay hees la yiraahdo muxuu ilaahayo adoomahaaga dulmifalayaasha hadday cafinayso anu ma cafinayo Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem. Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem. Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem. Sen Tanrısın affedersin, bağışlarsın kulum dersin. Sen Tanrısın affedersin, bağışlarsın kulum dersin. Neler çektim sen bilirsin, sen affetsen ben affetmem. Sen affetsen ben affetmem. Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem. Ağlatıp da gülenleri, terk edip de gidenleri, sevilip sevmeyenleri sen affetsen ben affetmem. maalin maalmaha kamida ay tahay 1989 iyadoo hooyadeed ay ka soo baxeen meel ay haysta ku soo bandhigeen oo gaari taxi wata ayaa waxay arkeen gaari iska daba ordayo inantii awal bedel hanjabaad bay qabtay iyo cabsiye askartii markaba la hadashay waxay ku tiri kiiba nadaba socda waxaan ka baqanay inuu dilo askartii waxay ku leeyahay waxa ka warwar aniga ku imaanna kadibna gaarigii ay la socotay buu hor jaray kadibna gaarigii mus hor jaray ay sigii ka soo daaday sigii ma ka soo daadagay bay beergana soo daadagtay ku tiri iga dhamo anu mar raba nolosheeda dambe inay isku jirtay sigii yiri ma igu soo noqo waxaas ka yeelmay amba waan ku dili amba wada igu soo noqo nixku ku soo noqon maayo kugu soo noqon maayo ay tiri waxa bad iska soo jir hooyadeed buu shan xabadood buu hooyadeed ku dhuftay hooyada dhulkii markiiba ku dhacday iyadoo beerka maskaxdeedu aan process gareenba hooyadeedna dhulkii ku dhacday ayuu iyadiina ku dhuftay saddex xabadood buu iyada ku dhuftay beergana iyana sidii hooyadeedu kale dhulka ku dhacday haseeshii hooyadeed waa la badbaadiyay laakiin iyadu halkiiba ku dhibatay markay uu intaa sameeyay markiiba baxsaday jarmarkuu baxsaday haseeshii jarmarkii markii waa la soo qabtay xabsiga lagu xiray 12 bilood ayuu xidhnaa kadibna Turkiga ayaa la keenay iyadiina halkii waxa lagu sameeyay aas laakiin maaha aas qaran hatta dad badan kama soo qayb galin in yaro qaraabada kamid ah ayaa ka soo qayb galay xabaasheediina waxa lagu xiray qafis waayo markii ay nooleed ayaa wuxuu ku hanjabi jiray hatta haday dhibaato lafiheeda ayaan qaadanaya sawgeeyada loo baqarayo inuu hatta lafiheeda qaato intana markay dhimatay laasay kadib qafas baa lagu xiray quful baa lagu xiray saas lagu walaaliyo markii Turkiga isagii lagu soo celiyay dulmigii kala halkan buu ka imanaya waxa lagu xukumay 15 sano quraat hada waa ninka bareerka gabadha u dilay 15 sano oo quraat ayaa lagu xukumay 15 sano hadana 3 sano ayaa dub loogu soo kaybiyay waxa la yiraahdo si fiican buu jeelka uga dhaqma 3 sano quraat ayaa dub loogu soo gaabiyay 3 sano quraat hadana 6 bilood quraat ku xidhnaaba yaani ninka gabadha dhan dilay 6 bilood quraat ay jeelka ku xidhnaa 6 bilood Turkiga ay 12 bilood oo Jarmalka ah ayuu gabigiisa jeelba ku xidhnaa waliba reerkiisii markay jeelkii ka soo baxeen turbaan iyo waxa filmaanta wada aragteen Turkidu qofka jeelka baxa ay soo dhaweeyeen reerku isaas soo dhaweeyeen waxna fafaxda loo qala bariyo hore marka la wareysto xuuran jiray waan ka xumahay waan jeclaa wax noocaas hase yeeshee bariyahan dambe yaani 20 sano kadib marka la wareysto ilaa imaka oo dhimashadiisa 30 sano ka soo dambeysay wuxuu yiraahdaa waxba kama xumi kama qoomameeyo waan ku saxsanahay inaan dilay waxaan dilay wax weyn sharaf aweed way khiyaanta
weliba ninkaas markii filinkan la sameynayay dadkii filinkan sameynayay ayuu hanjabaadiisu dhammaan misaba wuu hanjabay weliba cidna waxba ma yeelayso na dowladda muxuu ka hayaa masir buu ka hayaa maxaa waxba uga sameynay dowladda sirtan ku hayaana ninkan waxba kaga sameynay waa maxay filinkan waxa la doonayay midasho fanaanada la yiraahdo Serenay laakiin kadib markii uu hanjabay fanaaniintii matalaysay iyo filinka qoraagiisii iyo editorkii wixiiba adigu filinkaas lahaa soo saaraa markuu hanjabay kadib fanaanadii Serenay way baqatay waanay iska cajisay doorkaas aktarnimada amba inay booska Bergen inay jisho kadibna fanaanada la yiraahdo Farax Cabdalla ayaa iyadu doorkii qaadatay hase yeeshee waxba laga bedelay oo magaciisii laguma xusin isagoo laga cabsi qabo inuu dadka wax yeelo magaciisii laguma xusin ninkan wuxuu maafiyadu markii hore maafiyadu ka tirsanaa walina maafiyadu ka tirsan saa ugeedba dadku uga baqanayaan hase yeeshee ma garanayo yani dowladuna maxay uga baqanaysaa yani fahanjabayo dilku hanjabaya dee in la qabtay hase yeeshee iska soo tin kulli maadaama wax laga yaabo inuu si aan daliil lahayn ugu hanjabayo dadka waxay tahayba qisada Bergen ee murugal leh halkaas ay ku dhamaatay isagoo ilaa intay nooleedna dulmi iyo dilitaan iyo caga jugleyn iyo wax noocaas ku noole markay dhimatay kadibna cidi dishay loogama aargooynin saasay tahay waliba xumaanu ka faafinaya iyo beeno ah inay khiyaantay oo nin kale ku qabtay yani ayuu ka faafinaya waxay tahayba qisadan maanta waxaan ka qaadanaa waxa weeyaan laba wax qofka inaanad iska cafis aan dhamaad lahayn mariya labaad cid la cafiya sidoo kale samirka faraha badan lana inaanu fiicnayn waa la samraa hase yeeshee ilaahay wuxuu ku imtixaama lagu samraa ee qof kugu soo taagan adigii laguma samro xanuun baa lagu sabraa faqr baa lagu samraa wax la mid ah waxaas laga samraa la hase yeeshee cid inay ku dulmido adna daciif noqotid laguma sabro marna soo kale waxaan ka garan waxa weeyaan inantu inay xanuuno nafsiya ay qabtay isaga ninkan laftiisana isaguna uu qabay xanuun nafsiya aslan maxaa la yiraahdaa inantu waxa jira oo si dabiici iyo caadan ah wiilka iyo gabadha aabahood iyo hooyadood haday jacayl ay siiyaan iyo galgacal ay siiyaan labadooda si isku mid ah u siiyaan inantuna aabaheed buu dhawaanaysaa wiilkuna hooyadii buu dhawaanay yani u dhawaanay waxaan ku leeyahay yani faafureyso iyagu labadooduba waalidba jecel haddana faafureyska qofku waalidku wuxuu noqonayaa hablahana aabahood buu noqonayaa inamadana hooyadood buu noqonayaa wax iska dabiiciya oo ku abuuran qofka bini'aadanka inuu u baahan yahay inantu saaid ugu baahantahay jacaylka aabaheed wiilkuna saaid ugu baahan yahay jacaylka hooyadii iyagoo labada jacayl bay u baahan yihiin aslanba bini'aadanku meel bannaan oo jacayl u baahan oo lagu abuuraa iyo galgacayl iyo xanaaneyn wax noocaas marka inantan ma garanayo maadaama aabaheedna aad u jeclay inay jacaylka aabaheed ragga ka diidayso kii ugu horeeyay isagoo farxumeeyay saamaxaysay kanna saamaxaad way dhaaftay dadku ku noqo saamax fanaanadaas intaanay dhiman ka hor albumkeedii ugu dambeeyay soo saartay iyadoo la soo bandhigin ayay dhimatay hase yeeshee dub baa loo dhigay 1989 ayay dhimatay marka 1990 ayaa albumka la soo saaray waxaa iibab yani malaayiin qof ay iibsadeen waxay noqotay wanka fanaanadii ugu horeysay intaas muddadeeda dhow intaas oo malaayiin oo qof ay albumkeeda ku iibsadeen Turkiga ayay noqotay hase yeeshee waa dhimatay iyadoo muuji inay muslimad ahayn in kale hase yeeshee hadday muslimad ahayd ilaahay waxaas dhiba ku dhacay wanaag ugu bedelo iyo janno in heesaha qaadasana ilaahay ka dhaafo baan leenahay ilaa wali dadku dhageysanayeen ilaahay annaka iyo wadankeennaba xumaanta ka ilaaliyo nabadee